Deegaanka Milixo waa deegaan dawlad gaadhi waa kana tirsan gobolka Sanaag. 4 nin ayaa waxa ku dumay god, 3 nin oo kale ayaa laga soo badbaadiyay godkaasi xalay xilli dambe. 3 nin ee la soo saaray ayaa waxa godkaasi ka soo gaadhay dhaawacyo fudud. Ilaa xalay waxa jiray dadaalo ay dadka deegaanku ugu gurmanayeen ninka afraad ee godkaasi ku hadhay, marxuum Cabdiwahaab Maxamed Xasan nolol, kadib markii uu saacado badan oo xiriir ku jiray godka. Waxaana dadku intii ay ku jireen raadintiisa ay godka ugu tageen ilo biyo ah. Dadka ayaa adeegsanaya qalab isugu jira wiishash, iskarogooyin iyo wixii tamartooda ah oo ay ku badbaadin karaan marxuumka geeriyooday. Deegaanka Milixo ayaa laga qodaa macdanta dahabka. Milixo waxay ka tirsan tahay buuraleyda Calmadow ee gobolka Sanaag. Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyooday godkan dahabka laga qodo kadib markii ay godadkaasi ay ku dumeen. Dadka ku xogsada deegaanka Milixo ee gobolka Sanaag dhawaan sidan si la mid ah waxa ku geeriyooday marxuum muddo badan qaatay in godka laga soo saaro meydkiisa. Mana jirto dawlad iyo maamul u gurmada bulshada reer Milixo marka musiibadani sidan oo kale ugu dhacdo. Waxaana arrintaasi sabab u ah ma jirto maamul iyo dawlad ka jirta deegaankan, balse bulshada ayaa si iskooda ammaanka iyo adeegyada kale u qabsada. Milixo juqraafi ahaan Somaliland ayay ka tirsan tahay, balse wax dawlad ah ma gaadho. Saciid Qurbaawi, Telefishinka CBA, Cerigabo.